ummad la qarxiyey waxba kuma hirgalaan ummaddan bay kaasii fogeynaysaa mideeda kale ilaahay soo kuu qabsan maayo markaad caruur iyo haween ay qaraxaas ku xasuuqmaan dad birbigeedada masaakiina meesha ay ku baaba'aan ummaddiina kaa fogaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa ka fogaatay awalna dee manhajka waa isku haysan qaar waxay yidhahdaan dagaal hadduu socdo dad iyo ducafaa iyo dad kale waa dhimanayaan waxaan loo qasdin eed ma leh haddaad magaalada bartankeeda qarax ku samayso waad u qasaday isgoys baad gaari la istaagtay gaarigii baa la qarxiyey adoo u jeeda 2-3 nin 200 ama 100 ama 50 qof baa meeshii ku dhimatay miyaadan u qasdin arrintaa cudurdaar kuu yeelan mayso bal taageera cadowga u noqotay waxaan xasuustaa qaraxii isgoyska ka dhacay isgoyskan zooba maahan kii ka dambeeyey ex control waxaa hadlay shaakir suufigii weynaa gobolada dhexe wuxuu yidhi nimanka aad taageeraysaan waa nimanka saa dadkiina u xasuuqaya soomaaliyey miyaysan gar ahayn wuxuu ku hadlay miyaysan ummaddii u tusin marka asaga wahaabiyuu leeyahay ma kala jeclo shabaab wala jadiidiya wala maaragtay ictisaam marba haddaadan qabri caabudayn xaggiisa waxaad ka tahay wahaabi waxaad ka tahay khawaarij waxaad ka tahay mutatarif isku mid baan u nahay kulligeen kan islaamiya muslimka u yaqaan iyo anoo asaga mushriga u aqaanba isku mid baan isaga u nahay laakiin ummaddii kuleelku gaaray buu tusay dad badan baa u guuxay xataa communitiyadan ka arkay oo yir dhaqaalaad ku bixisaan adin ganacsada adinkaa taageeray caruurtaa la xasuuqay maanta aakhira waa laidin weydiinaya warkiisa uu ku hadlay marka ay noqoto dhankan loo fiiriyo gar wey laakiin ujeedkiisa uu ka leeyahay caruurta ka nixi maaye dadkan dhibaatoodana ka nixi maaye caqiidadiisa shirkigaa midda ka soo horjeedo tawxiidkaabuu diidan yahay fursaddiisiina waxaa hirgeliyay adiga dacwadii suufiyadu maanta waa bulaalsh geeska africa dacwada maanta ugu xoog badanoo socoto wey ninkii dacwa tawxiid sheegana si kalaa loo fiirinaya maxaase fursaddaa siiyey colaaddii iyo dagaalkii shacabka iyo xarakada iyo dowladda isku dhex walaaqmay weli fursadda waa jirtaa ninkii ilaahay u toobad keenayo in dacwada saliimka xoogga iska dhaaf in xoogga la saare tii aan wadnaad naga hor istaagteen xalakatiin ninka dacwada u qaabilsan xarakada ah tii aan wadno suufiyada la hortaagnaynba isagaa hor istaagay marka adinkaaba dacwadii garbaduub u haya iska dhaaf inaad dacwo taageertaan ma aqaan inaad wada ogtihiin iyo in kale si kastaba ahaatee istraatiijiyadda khaldantay waa midda hadda meeshaana marinaysa waay welina nashiida la isku raaligelinaya nashiidda xagga noo dhig waaqica imaada waaqica imaada mujtamacan jaahiliga waa mujtamac baadi asal u ahaa in tawxiid loogu yeero u baahan yahay caqiida laga dhiso adoo ka beri ah ilaahay dartii uga beri ah kadibna nasriga ilaahay baa imanaya taa waa caqiidadii iyo istraatiijiyadii iswata